kubadda cagta waa mid ay ciyaartooyda magacii masab ay ka sameeyaan qaarkood waa kuwa taalo loogu taago halka ay magaca ka sameeyaan waxaana loogu gol leeyahay in lagu xuso silimidna waxay noqon kartaa in ay role model u noqon karaan ciyaartooyda kale ee da'yarta kuwaas oo raba inay heer wanaagsan ka gaaraan saaxada kubadda cagta muuqaalkeen waxaanu ku eegi doonaa ciyaartooyda Afrika ka soo jeeda ee goolasha ugu badnaa ka dhaliyay horyaalka Premier League ee dalka England inta aan warbixinteena aan u guda galin nagu dhiirigeli like aragtidaada quruxda badan hoos inoogu reeb saaxiibadana u share garay si iyagana ay qayb ka noqdaan saaxiibada aan halkan ku leenahay marka laga hadlayo qaarada Afrika ciyaartooyda ka soo jeeda waxa durbadiiba maskaxda ku soo dhacaya dhowr ciyaaryahan oo waaweyn waxa kamid ah ciyaartooyda waaweyneed ee dunida magac ka sameeyay Afrika ka soo jeeda JJ Okaja Weha iyo ciyaartooy kale oo waaweyn oo Samuel Eto'o Fles uu kamid yahay hadaba waxaan eegi doonaa markaan horyaalka Premier League xidiga ka soo ciyaaray ee qaarada Afrika ka soo jeeda goolasha ugu badnaa ka dhaliyay haliga Chelsea Didier Drogba ayaa xidiga ugu goolasha badan ee horyaalka Premier League ka dhaliyay kaasoo ka soo jeeda qaarada Afrika gaar ahaan wadanka Ivory Coast Didier wuxuu dhaliyay 104 gool isagoo kooxda Blues waqti fiican kula qaatay horyaalka Premier League kula guuleystay si lama tartanka xiisaha badan ee Champions League sidoo kale waxaa jira xidiga kale oo waaweyn haddii aan eegno liiska xidigaha waaweyn waxaa kamid ah Didier Drogba oo lambarka koowaad ku jira wuxuu dhaliyay 104 gool lambarka labaad Adebayo ayaa ku jira 97 gool ayuu dhaliyay ciyaaryahan Yakubu oo ahaa ciyaaryahan soo maray kooxda Blackburn Rovers ayaa ku jira 95 gool ayuu dhaliyay Sadio Mane oo imika Liverpool u ciyaara welina ku sugan Premier League 84 gool ayuu marayaa Mohamed Salah ayaa shanaad ku jira 78 gool ayuu leeyahay kaasoo imika Liverpool qayb ka ah Yaya Toure oo ahaa dub dhaxaadkii kooxda Manchester City 62 gool ayuu ka dhaliyay horyaalka Premier League ee dalka England lambarka toddobaad waxa ku jira sheekadan ay taabanayso ciyaaryahanka reer Algeria Riyad Mahrez kaasoo imika qayb ka kooxda muwaadiniinta ee City 57 gool ayuu ka dhaliyay horyaalka Premier League ee dalka England lambarka sideedaad waxa ku jira ciyaaryahanka reer Gabon ahna kabtanka Pierre-Emerick Aubameyang kaasoo imika hogaamiye u ah kooxda Arsenal 55 gool ayuu ka dhaliyay horyaalka Premier League waana ciyaaryahan sii wada kara hanaankiisa goolalineed ee kooxda Arsenal lambarka sagalaad waxa ku jira Kane wuxuu dhaliyay 54 gool oo horyaalka Premier League ah lambarka 10aadna waxa ku jira ciyaaryahanka lagu magacaabo Ivano Ikokian kaasoo horyaalka Premier League ka dhaliyay 52 gool waxa sidoo kale jira ciyaartooy kale fursad u heli karta inay noqdaan in ay helaan booska koowaad sida Sadio Mane oo 84 gool leh kaasoo kamid ah ciyaartooyda weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool wuxuu booska kala bixi karaa dhowr ciyaaryahan oo kamid ah Yakubu ciyaaryahan Adebayo Didier Drogba kuwaasoo masaafo ahaan goolasha ay leeyihiin oo aad ugu dhow yahay ciyaaryahanka reer Senegal ee Sadio Mane Afrika markay timaado waxaa jira dhowr ciyaaryahan oo magac ka sameeyay magaca ugu weyn oo maskaxdaada ku soo dhici kara waa madaxweynaha Liberia ninka lagu magacaabo Weha wuxuu ku guuleystay abaalmarinta ee cid walba oo Browniga ciyaarta ay ku riyooto Ballon d'Or sanadii 1995 iminka abaalmarinta waxaa ku tartama ciyaartooyda qaarada Yurub waxaana uu ahaa Afrikaankii ugu horeeyay ku guuleystay abaalmarinta laacibka ugu fiican ee Ballon d'Or 1995 ayuuna Weha ku guuleystay abaalmarintaasi laakiin waxaa jira xidiga kale soo dhaweeyay inay qayb ka noqdaan intaas ayaan muuqaalkeena ku soo gunaanadeena 10 ciyaaryahan ee ka soo jeeda qaarada Afrika kuwaas oo goolal badan ka dhaliyay horyaalka Premier League hadaba daawade haddii aad daawanayso muuqaalkan la wadaag asxaabtaada naga filo muuqaalo kale oo ku xiiso geliya mahadsanidin